Asalaamu calaykum. Mawduuceena maanta dunida nadarkaysan waxaa lagu soo halgamay waa xorriyadda si waddan walba xorriyadiisa u qaadan lahaa. Kuma haweeneydii oo la dagaalantay aabaheeda si ay xorriyad u qaadato. Haweeney taliye boolis ah oo u dhalatay dalka Itoobiya ayaa caalamka uga sheekaysay qisada ku saabsan sidii ay dabiiqadii 1970-meeyadii iyadoo dhowr iyo 10 jir ah ugu biirtay koox falaaga ah oo lagu magacaabo dhaqdhaqaaqa shacabka xoreynta Tigrayga ayna goob dagaal ku wajahday aabaheed. Wuxuu gabadhan aabaheed markaas ka barbar dagaalamayay ciidamada dowladda militariga ahayd ee xilligaas ka arrimaysay dalka Itoobiya. Aabaheena Kasa Haile wuxuu dhinaca siyaasadda kula dagaalamayay dhammaan 5 caruur ah oo uu dhalay, laakiin aniga iyo asiga waxaan isku faras saarnay dagaal khaas ah oo lagu magacaabo Adi Emiru. Markii aan isfaras saarnay kadibna bentii wuxuu dib ula gortay ciidankiisii dhaawacmay. Sidaas waxaa caalamku sheegtay Alamtasha Kasha. Sidoo kale hooyadeed waxay taageero daacad u ahayd falaagada la magac baxday dhaqdhaqaaqa xoreynta shacabka Tigrayga. Isku dayday inay ka dhaadhiciso ninkeeda oo askari ahaa inay ka beddesho fikrad sidii ay gabadhooda caalamka u sheegtay. Waxayna seegeedu u qortay warqad ay ku baryayso inuusan dagaal ula hortagin gabadha 14 jirka ah ay wada dhaleen, laakiin wuu ku gacan saaray codsigaas isaga oo ka dalbaday haddii ay gabadhooda wanaag ay doonayso in ay ka soo celiso gabadhooda falaagada ay kula jirto duurka. Alamtasha Kasa ayaa warqad u qortay mar kale aabaheeda. Se ahaatee mar kale ayuu diiday inuu ka soo goosto ciidamada dowladda oo lagu yaqaanay inay gacan bira kula dhaqmi jirtay, iyadoo kumanaan qof dowladda ka soo horjeesatana la dilay. Markii dambe iyadoo lagu dhaawacay gabadha aabaheed dagaal kale oo la magac baxay Fares, waxaana maxbuus ahaan gacanta ugu dhigay xoogagga falaagada. Ugu dambeyntii isagoo weli maxbuus u ah geeriyooday sanadkii 1982. Alamtasha waxa ay sheegtay markii dagaalyahanada isku kooxda yihiin ay ka maqasheen aabaheed ee geeriyooday ay si saa'id ah u murugootay. Suurtagelin inaan aabaheed dib u arko aad baan u walbahaarey markii dhimashada aabaheed aan maqlay, balse intaasoo dhan waxaa iga sii darnayd in aabaheed uu dhintay isagoo taageersan maamul dulaa ah oo aad u xukun adag, ayay tiri Alamtasha. Muddo 17 sano ah ay xoogagga falaagada ku qaadatay xukunka ka tuuraan dowladdii militariga ahayd ee Mengistu Haile Mariam, kaasoo dibadda u baxsaday sanadkii 1991. Laba ka mid ah Alamtasha walaalaheed sidoo kale ku dhintay intuu dagaalku socday. Hadda oo ay tahay taliye ka tirsan booliska Itoobiya ayna hooyo tahay 2 caruur ah, ay weli ku faraxsan tahay doorkii ay ku lahayd afgembigii lagu sameeyay Mengistu Haile Mariam. Xitaa arrintaas darteed iyadoo ku weysay aabaheed iyo walaalaheed